السلام عليكم. maanta muuqaalkeenu waxa uu ku saabsan yahay hanka sare iyo sidii uu qofku yeelan lahaa han sare. barnaamijkeena maantana waxaynu ka soo xigan doonaa buugga uu qoray Cabdifataax Maxamuud Ducaale. ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. maxaa loola jeedaa han sare? han sare waxa ay ka dhigan tahay inuu qofku yaraysto caqabad kasta oo ka hor timaada inta uu hiigsanayo yoolka uu rabo inuu gaadho. han sare waa shay kugu xambaaraya inaad u istaagto oo aad ka miro dhaliso yoolka aad hiigsanayso. cumar bin khadaab Allah ka raali ahaadee waxa uu yidhi hankaaga ha yarayn, waayo maan arag qofka wax curyaamiyo oo ka daran hanyarida. soomaaliduna waxa ay ku mahmahdaa lax waliba shalka isdhigta lagu qalaa. taas macnaheedu waxa weeye hadba adigu meeshii aad isdhigta ayuunbaad ahaan. haddii aad han sare yeelato meel weyn ayaad gaadhi doontaa. haddii hankaagu hoos u dhacana weligaa intaa dhaafi maysid. haddaba han sare waxa uu la mid yahay himmad sarraysa, han hooseeyaana waxa uu la mid yahay himmad hoosaysa. himmaduna waxa ay la mid tahay shayga uu qofku ku hamiyo oo uu niyeysto oo uu ku fikiro inuu sameeyo kana sal gaaro. su-aasha labaadna waxa ay tahay hanka sare halkee ayaa uu ka soo burqadaa? hanka sare ama himilada sare booskeedu iyo halka ay degan tahay waa qalbiga. xubnaha kalena waxa ay fuliyaan wixii himmad ah oo qalbiga ka soo fula. qofkuna himmadiisa waxa uu ku gaaraa oo uu ku helaa darajo aanu ficilkiisa ku gaarin. xadiiskii nabiguna waa kii ahaa calayhi salaatu wasalaam: man sa'ala allaha shahaadata bisidqin ballaqahu allahu manaazila ashuhadaa wain maata calaa firaashihi. qofkii alla weydiista shahaado si dhab ahna u weydiistaa, alla waa uu gaarsiiyaa darashada shuhaadada walow gogoshiisaba ha ku nafbaxee. qofka hankiisu sarreeyo alla waxa uu ka dalbadaa wax weyn, allana waxa uu siiyaa waxa uu ka dalbaday, niyadiisa ayaana uu ku siiyaa. su-aasha saddexaadna waxa ay tahay hanka sare ama himada sarraysa ma deeq iyo hibo alla bixiyaba mise waa shay la kasban karo? qofku inuu han sare yeesho waa shay alla ku abuuray. markaa guud ahaan qof walba waa uu leeyahay han sare, laakiin qof walba meel ayaa uu ugu joogaa. hankuna waa shay qaabili kara inuu kor u kaco hoosna u dhaco. qofku marka uu ku dadaalo inuu hankiisa kor u qaado, hankii sare ee alla ku abuuray waxa ugu darsamaysa midii uu isagu kasbaday. qofkii iska fadhiista oo aan ka shaqayn siduu kor ugu qaadi lahaa hankiisana, intii alla siiyey ayaa ay ugu joogaysaa. dariiqa alla jeexay noloshan adduunyada ayaa waxa ay ku dhisan tahay wixii la kobciyo ayaa kobca oo hana qaada, wixii la dayaco ee aan la kobcinna ma hana qaado, kor uma kaco, siyaadana kuma darsanto. himaduna waa sidaas oo kale. su-aasha afraadna waxa ay tahay hanka sare ma lagu kala duwan yahay? noolaha oo dhani han sare waa leeyahay, wayna ku kala duwan yihiin, midba meel ayaa ay ugu joogtaa. haddii aynu eegno sida uu xayawaanku u kala han sarreeyo, caarada ama caaradu marka ay dhalataba waxa ay bilowdaa inay samaysato gurigeeda iyo meeshii ay ku noolaan lahayd. hooyadeedna kama sugtay inay u dhisto guriga. abeesada weligeed kuma noolaan god ay iyadu qodatay, waxa ay raadsataa god bahal kala qotay, waayo habdhaqankeeda ayaa waxa uu ku dhisan yahay dulmi, dhac iyo boob. shimbirka loo yaqaano tukaha waxa uu raadsadaa neef dhintay hilibkiis oo uu cunaa. gallaydhkuna wax aan noolayn hilibkiis ma cuno, oo baktiga iyo meydka hilibkiisa ma cuno. sidaas aad arkaysidba xayawaankii ayaa kala han sarreeya. mid ayaa ku qancay inuu meyd cuno, midna naftiisa uma uu quurin bakti iyo meyd inuu cuno. midi waxa ay ku tala gashay inaysan cid kale ku tiirsanaan ee ay gurigeeda iyadu dhisato, midina waxa ay ku tala gashay inay cid kale xoogto oo ay dulmi ku noolaato. haddii aynu tusaale u soo qaadanno sida ay dadku u kala han sarreeyaan, waxaa maalin isku yimid 4 nin oo kala ah cabdillaahi binu cumar, cabdimaalik binu marwaan, curwa binu zubayr iyo muscab binu zubayr. waxa ay fadhiisteen harka kacbada hoostiisa. markaas ayaa uu muscab ku yidhi, maanta qof walba waxa uu rajaynaya ha sheego. waxa ay ku yidhaahdeen adigu bilow. waxa uu yidhi anigu waxaan rajaynayaa inaan guddoomiye ka noqdo waddanka ciraaq. labada gabdhood ee kala ah sukayna binti xusein iyo caaisha binti dalxa inaan guursado. curwa ayaa hadalka qabsaday oo yidhi waxaan rabaa inaan noqdo caalim weyn oo cilmiga laga barto. cabdimaalik ayaa isaguna yidhi waxaan rabaa inaan noqdo madaxweynaha muslimiinta oo dhan. saxaabigii cabdillaahi binu cumarna waxa uu yidhi
anigu waxaan rabaa inaan janno helo. saxaabadana waad aragtaa sida hankoodu u kala sarreeyo. taas ayaa uu inoogu egyahay mawduuceennii maantu. wassalaamu calaykum. ليكن يومك للشعب ودادا ليكن ربك للأرض مدادا قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت المجد أطوالا جدادا